KNN horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahin si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan akhyaaray waxaa la yidhi abaal ruuxi kuu gala haddii aadan gudi karin goobtii la joogiyo geed kastaba ka sheegoo gaarsiiya adduunyada waxaan uga jeedaa ismaaciil cumar geelle soomaalidu amaalkiisa ma gudi karto berigana lamadi golee baarlamaankow khudba ka hor jeedshay minay wax maqlaayaanna wax waa u sheegyo waa la dardaarmay sidii macallin cashar bixihaaya ow dawladnimada iyo dhaqanka laga rabo ugu sharaxyay hadday wax maqlaayaan wax waa u sheegyay haddii la dili jira se asagu dili ma hayn war cashar waxaa qaata maskax fayow war naga tag waana abuuris baa ka horraysay waryaa lundhown hallawna shibaalma hallaawa soo leeri war madaxweyne geelle labadii gole baarlamaanka oo kala ahaa golaha safka iyo golaha sacabka hadal qiimo leh buu u jeedshay waryaa jiibka iyo jaandalayna guri jirteen haddana safka iyo saxabka yeesheentena arsafka iyo sacabka waxay ahayeen maham aroosaa ka jira war nimanyo golaha sacabka niman wax u dhiibin warkiisa ma maqlaane odaga wax ma u taagay makadhafaraasamayka daari mar horay ka fuujiifadeen aryaadhaha ismaaciil haddausan boorsadiisa furin golaha sacabku warkiisa maqli maayaan miyaad tiriheen fadlan kor u haay war adeero fare aan dufan lahayni waxba ma duugaan war nimanyo waxaa la yidhi dhimir iyo dhegiyo dhayb ayaan dhuuntu maamuline gobonnimo ku dhiirada gumbaan dhimanna noolayne anugu soomaalida waa la yaab ismaaciil cumar geelle iyo jabuutiba abaal bay noo galeen bay leeyihiin aaway annagu abaalkaan u galnay midda kale ismaaciil cumar geelle wuxuu xukumaa 1 milyan oo dada nimankaanuna 15 milyan bay xukumaan marka koodee la saxaya waryaa 15 milyan markii laba ismaqasho laga waayey waa kii carta inta teend uga dhisay isugu geeyey milyankaana quudihayay 15 milyan oo dawlad u soo dhisay war maalinka haddii ardadiis badan tagaylika wareeriyayaan laakiin haano kooban hoob ardadiis atasa deganaashe oo walan fahan sii kora warniyo qoladii nin jah wareertay ee dhinac isu raaca laga laayahay ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa war nimanyo mucaaradka xukuumadda soomaaliya ka soo horjeeda cabsi baa soo wajahday waxayna ka qawaafeen ismaaciil cumar geelle casharkiisa iyo cabdiqaasin oo daha gadaashiisa fadhiya muraadka ay leeyihiin war see looga qawaafayaa guurti siyaasadeedoo ehela waa loo baahnaaye war meesha casharka ismaaciil cumar geelle ugu bixinay cabdiraxmaan cali shukur ma joogay war facebook live buu kala socday war muuse bixina wuxuu ka daawanayay youtube-ka KNN war mucaaradka cumar cabdirashiid baa ugu hadal la caddaay wuxuuna yidhi ismaaciil cumar geelle dadka soomaaliya ka degi weysuu ka mid yahay marka nin baa wuxuu ku yidhi cumarow ismaaciil waxaad ugu caroonayso boos iriirsi bay kaa tihiyo ciil siyaasadahe carta lama dafiri kara ee waad camal hadlaysaaye soomaaliya intii cuni jirtaad ugu cod dheerayde adigaaba caan ku ah inaad ciidda gadataaye cambaar duul cambaaraysay baad iila caynta ismaaciil nin yaqaanoon xaqirayna wuxuu yidhi adduunyada culays baa ka jira cadow ku beereen cudud qoomam sheegtaa jiriyo caaraduu badan cashiiraannu nahay oo col buu nooga digayaaye ismaaciil cayaar uma imaan shala cadceeddii khamiisii unukosi fiican u soo qiraawinin horteen jimaac ka soo baxdi oo sabdi la joogo ajididkii la heri axadaa herneed ilmaha waa qaajaysiin uka ilmahood waa soo biishtan kuwan waa qadoo hayin waxaasma warama ugu marmaysa bajaajiya gaar dabeer la saaroo haya wax maa nooliman waryaa unuku waa xerinaya harbaxo ismaaciil murgeel xabbaho waa dhibtaan waa haakada noo timid war degmada cabdicasiis waxay naqatay xarunta safaaradaha maantana waxaa laga furay oo xarigga laga jaray safaaradda jabuuti dhisme ay leedahay hadda labada madaxweynaha maqaska u qaatay isku mar war ma u qor jireen arrimaha tuur lagu xiiri mahayna guri qurux badan oo safaaraddu leedahay ayaa xirigga laga jara beriga war aadan balaley waa shaqeeyey haddii safaaraddii maanta xarigga laga jaray war nimayo fanaaniinta waaweynaa ee xasan aadan samatari axmed cali cigaal markii xafladdu dhammaatay gaarigii lagu qaaday ayaa hees looga daaray waxayna ahayd yaabay maxaa kaa yaabshay markaasay yaabeen oo waxay yidhaahdeen war waa maxay waxaad noo shideen war ayagaa fursad siiyey maxay ula yaabayaan imisay maqnaayeen war nimiyow hafladii hareehiin hasuusideen waaye hasuusidi
hasna weedan samatar afka furdiya singari may eriga saasana hakaba binaanshe buurto kitaalo banooda balankaana haaye baawur maraw ey la buube hadda ka hor ayuu heesta xasan aadan oo hargeysa looga qaaday marka bilaa calaag waxaan nidhi heestaa suudaaniga loogu soo celi war anugu waxaan ka helay heeskii ama calcigaal qaaday xalay markii ugu horraysay haleelay caashaqu ma halkaan fadhiistaa war salaad darbiga dhigi maayo tuutahow qaaday isagoo tuuta wata weliba waxaa maqli jiri waa yeel jacayl gali ma fududaan la yidhi warniya waad waarante maha sidaase waa jaariya jacayl galay weelkay jejebisa oo jikaday ka booddaa warnamayow dhegaysta fankii baa lagu ciyaaray fannaan sharaftiisu fiiqan falaash wiil haysta iyo waxaa dilay faashiyoon war fanku markii horeba ciyaarahaya maxaa kaloo lagu ciyaaray war reer mudug may baaraayana ilmaadeeryaalow dheesha ciyaarta nooga daaya ilmaadeeryaalow war mudug taasaan ku xasuustay reer mudug kalamaanay noqdeen anigu waxaan ka yaaba kalamaan korkoor heesu soo kudeen man heer mudugoon kalamaan haynaad weligiin aragteen war kalamaankii aan sii kornay naga dhegaysa warka madaxweyne xaaf iyo ra'iisul wasaare doctor shaakir oo isla fadhiya ayaa war soo saaray waxayna yidhaahdeen galmudug waxay bilaabatay markii aan midowno heshiinay 3 sanana xilkeena ka dhiman bay yidhaahdeen hilimoodiyaada hajeedana masundiraayen war waa xadraynayana waxay galmudug bilaaban doontaa marka caradheere iyo ceeldheer al-shabaab laga saaro warwarkaa iga dhex gelin inaan idiin dhammeeyo guddoomiyihii baarlamaanka cali gacal casiraasna hadlay wuxuu yidhi doorashadii galmudug sanadkan gudihiisaa la qabanayaa war cali gacal casir cabdikariin xuseen guuleedoo doortay xaafow doortay axmed baastow doortay asigu doorasho badan ama ganacsiga doorashadana uu sheego horta madeeyow hilmoodkan iyo haantaan ad sheegtaan helil aheexay ahaayeen war afhayeenkii shabaab calidheer wuxuu yidhi muslimiinta new zealand lagu laayey waa u aargudaynaa haye calidheerhe new zealand ma gaariyo ma ununkownaga aari rabaa haddana calidheera muslimka new zealand lagu laayey markuu u aarayo kuwaanuu asagu laynaya yaa u aaraya war hadda ka hor weerarkii lagu qaaday westigate ayaa nin baadariyu ka hadlay wuxuu yidhi waxaan muslim kama dambeeye argagixisaa ka dambaysee muslimka ayaan loo gafin nin weriyaha su'aal weydiiyey wuxuu yidhi dadkii meesha galay qofkii ashahata la taabamaayay dhahayeen markaasuu baadariga wuxuu yidhi soomaaliya 100% waa muslim masaajidyada muqdisho kuwa ay ku laynayaan maxay u laynayaan hadday muslim badbaadinayaan war madaxweynaha turkiga urdugan wuxuu yidhi argagixisadu muslim keliya maahana muslim iyo gaal wixii wax argagixiyaa ah waryaalahan war ma haysaane db wall iyo dekadii berbera qaylo dheer baa ka taagan lacagtii bay ku kordhiyeen ganacsatadii db wall ganacsatadiina way ka mudaharaadeen waxay waxba kala soo degi mayno dekadan ununku db wall mar horaan mamnuucna idinka xaa idinku raacayay adan ilmaha caarahooday noo siiyaan manaa la weynaadoo laweekiyo waa la yidhi warka waa kaa wareersaha war mihaysiine dameer dhuxul sido ayaa shabaab dameerkiina gowracay dhuxushiina gubeen ninkii watana waa ay wateen war awalba ayagoo dadka laynayay dameeraha xuquuqdoodan ilaalinayna dhihi jireen dameerihiina ma laynayaan war dad masaajid ku jiro dadkii qarxinay dameer ma dhaafa war dameeru masaajidada ma galaana maxay ka rabeen kooxdan kalamaan iyo kulmiya war dhameeyey horta xaad la qaranacaysiin korkiinu heesu soo Allah idin asture